ha ka dalban inay cidi muhiimadda ku siiso. muhiimadda kuma siinayo ilaa qalbigu jecel mooyaane. kamaad suulin weli inaad qof sharafto kadibna oo ku khiyaamo 1000 jeer. waxaad iga tagtay xanuun igu filan 70 sano, maxaa kaa deeqsiisan? waxay naftaydu u ooyeysaa qofkii igu yidhi ha ooyin, ilmadaadu waa qaaliye. geeridu ma xanuujiso ka dhintay, geeridu waxay xanuujisaa kuwa nool. waxaan rajeeyey inay ayaamuhu sii socdaan, laakiin waxaan ilaaway inay cimrigaygii yihiin. shayna kuma soo noqonayo siduu ahaa. danaytu kama timaado ilaa qalbi ka baqaya maqnaantaada mooye. maaha markii koowaad ee aynu kala tagno, balse waa markii koowaad ee inaan isku soo noqonayn. farxad ayaan kuu rajeeyaa adigoo badiyey oohintayda. ma laha dhammaad jacaylku, balse jacaylka dhammaaday muu ahayn jacayl. ma u qalantid inaad ahaato jacaylkeeda, adigoo ka dhigay inay seexato iyadoo ooyeysa. markay dhammaato danayntaadu wuxuu noqdaa joogitaankaagu sida maqnaashahaagoo kale. wuu ku dheeldheelaa bixitaanka mid kastoon garanayn xanuunka. 3 shay oo ugu xanuun badan: ku xidhnow, dabadeed ku xidhnow, dabadeed ku xidhnow, dabadeedna kala tag. dembi noocey ayaan kaa galay oo aad igu ciqaabaysaa maqnaantaada? kadib habeenka kala barhkiisa waxaan u xiisaa codkii sheekadaada, waxaan u xiisaa naftayda anoo kula jooga. waxaan ugu warramay inaanan muhiimadda siinayn, waxaanay habeenkeedii ku dhammaysatay oohin. magaalo kastaa way seexatay ilaa gabadh intuu ninu ballanqaaday inaanu maqnaan, dabadeedna maqnaaday. haddaad doonayso inaad qof weydo, keliya u sheeg inaad jeceshahay. waxaan kuu jeclaaday sida noloshuna ma dhammaanayso ilaa dhimasho mooye. maku doonaya in badan, waxaan doonayaa inaad muhiimaddii siiso keliya. kii kaa dhigay inaad daawac marto, ha u malayn inuu ku jecel yahay. ka ku jecel kuma dhaawaco. way dilaysaa murugadu markastoon soo xasuusto kelmadahan ku idhi qof aan mutaysan. ma bilaaban ninku beenta ilaa iyo markay gabadh kale soo gasho noloshiisa. waan idiin qori doonaa jacaylka, laakiin kuma noqon doono in aan aamino.